laakiin waxaan la soconnaa in dumarka Soomaaliyeedu ay aad u hinaasab badan yihiin badanaana aanay suuroobin in laba dumar ama saddex dumar oo hal mar wada guursato adiguna saddex dumar hal mar wada guursatay sidee ayay kugu suurooday arrinkaas ee aad isku waafajisay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقارير واحد لا يصبح ونكسن قلب ونكسن هبي ونكسن واحد كستيكوتا ونكسن عكور جينا عدو عفمات قبالة تايتان مغالك الضغط وغوري بس يعني الله صحيح بتكين سكرتر سيدو كل مغالك لنا قروا ما سيدين أوكي سيدا مغالك سرقو ساركتين با هل كان ساقاي جيدان ويل سوماليد أيام مرقو روحو لا أقل قالي سد حبلوت حد waa 3 حبلوت هل قبر لما قبر 3 قبر أيو هل مر لا أقل قالي يعني أروس كما قبر انتو مر لا أقل قالي متكلم معه مرقورة أيو هل أرس وحو دغاي 3 حبلوت هذا مد kale ku qalacsan tahay waa isku faraxsan yihiin wax Allah uqdad iyo wax Allah maseeriyo habeeraati ma jiraan dhacdaas ay noqotay dhacdo la yaab leh oo aad iyo aad looga hadalhayo goobta ka dhacday ama magaalada ka dhacday iyo guud ahaan baraha bulshada Soomaalida hadaba hadal badan yaad ku daalina aroskan sida uu dhacay sida loo galbinayo bal ila daawada oo daawasho wanaagsan Cabdixakiin waxaan la soconnaa in dumarka Soomaaliyeedu ay aad u hinaasab badan yihiin badanaana aanay suuroobin in laba dumar ama saddex dumar oo hal mar wada guursato adiguna saddex dumar hal mar wada guursatay sidee ayay kugu suurooday arrinkaas ee aad isku waafajisay amba aad isku ogolisay horta qadarkun baa isku wada keenay qorshahan isku keenayna maxaa dhacday habla horta waynu heshiinay kulkan banaga joognay wada sheekaysanay ayaan ku heshiinay qorshaha inaan saddexdeedaasba sidaa isku wada guursano sidan Cabdixakiin oo aad hal xaflad ugu wada dhigtay ma laga yaabaa hal guri inay wada dejisay faysi waa sidee dareenkaaga caawa waa sax walaalaad baan u faraxsanahay waxaan ku tashanay waxa anaan ku qanacsanahayna wax kastana in ay dhici karaan baan iska ogsoonay laakiinse waxaan ku tashanay bay tahay waan ku qanacsanahay raalli ma ka tahay in sidan hal xaflad la idinku dhigay in hal gurina la idin dejiyo ninka Cabdixakiin wuxuu sameeyay wax rag badan ay ku dhiiradaan ma sha Allah alxamdulillah saddexdiisa dumara ilaahay horta u barakeey marka roon ducaynayna daba daawadayaal waa mar kale iyo la yaabka Horyaal TV waxaan u soo baxnay kantaroolka dhinaca galbeed ee magaalada Hargeysa hadda ayaanu magaalada Hargeysa ka bixi doonaa waxaanu idin soo tabin doonaa sheeko aad u xiiso badan safarkaygan waxay igu wehelinayaa saaxiibkay wariye Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciise Jumbo sheekadan la yaabka leh ee telefishinka Horyaal uu maanta u soo qalab qaatay talow maxay tahay isoo raaca wanaagsanidu waxay kugu hagtaa halowsiga kalgacal halku doonaye waxa hagar la'aan hooygay isteen loogu hoynayaa wanaagsanidu waxay kugu hagtaa halowsiga kalgacal halku doonaye waxa hagar la'aan hooygay isteen loogu hoynayaa habandhalad siciidiyo dhibo badan ayaan hanashada jacayl awayo markay wada heleen arooska wigalay daawadayaal hadda waxaan soo gaadhnay magaalada Wajaale waxaanu u sii gudbi doonaa dawlad deegaanka gaar ahaan degmada Awbare ee gobolka Faafan halkaasi oo aan idinka soo tabin doono sheekada xiisaha leh ee aan uga soo baxnay magaalada Hargeysa haddaba daawaday si aad u daawato sheekadan xiisaha leh ee aanu safarka u soo galnay nala joog oo na soo raac daawadayaal waxaan soo gaadhnay goobtii uu hore idinku sheegay wariye Liibaan Cismaan Cali halkaas oo mid ka mid ah la yaabka telefishinka Horyaal idiin hayo oo aad u xiiso badan aan idinka soo tabin doono si aan goobtan u soo gaadhno waxaanu ka soo galab caroonay magaalada Hargeysa annagoo guuro habeennimo ku soo gaadhnay halkan oo ah dawlad deegaanka Soomaalida gobolka Faafan degmada Awbare gaar ahaan qabalayga Hargeysa yar
oo layaabkaasi ka dhacaya caawa talow layaabkaasi muxuu noqon doonaa daawadaya aad baad ishii dhigtaba u taagaysaan laakiin hanaaga degdegina gadaal ayaad ka ogaanaysaan xogta oo dhammaystiran iyo waxaa halkan aanu u nimi wakhtigan saqdii dhexe habeennimona ay tahay aan u joogno barbarkayga waxaa jooga wariye liibaan cismaan cali oo ka mida bahda wariyaasha telefishinka horyaal goobjoogna u soo ahaa layaabo badan oo hore u dhacay weliba qaarkood uu ka tabiyey halkan oo ah telefishinka horyaal caawana wuxuu sheekadan layaab kale igula daadihinaya anigoo cabdiraxmaan jumba ah wariye liibaan soo dhow liibaan goobtan waxaynu nimi sida ay dadkuba arki karaan waa saqdii dhexe habeennimo talow ilaa hargeysa ka nimi laba dal baynu ka soo gudubnay somalilan iyo etoobiya talow hawsha intaa leegeen halkan u nimi bal dadka maxaad uga iftiimin kartaa waad mahadsan tahay cabdiraxmaan sidaad horeba u sheegtay maanta galab ayaynu ka soo baxnay magaalada hargeysa caawo ay tahay 10kii iyo barhkii habeennimo ayaynu deegaanka soo gaadhnay cabdiraxmaan haddaad hore u maqli jirtay sheekadii aynu hore u tabinayay ahayd nin laba dumara hal habeen guri kula aqalgalay ama hal habeen laba dumara wada guursaday caawa waxaynu tabinaynaa midtaa ka duwan waxaynu tabinaynaa sheekada nin hal habeen 3 dumara la aqalgelaya sheekadaasaynu halkaa u nimi sheekadan oo dhabaad bulshadu haysaa miya haa cabdiraxmaan waxaan kuba sheekadaa markaan maqlay aad baanu la yaabi waana tahay dhalisay inaynu u soo qalab qaadanno oo aynu deegaan ka nimaadno oo aynu caawa buuraha iyo aynu u soo jiidhno isla markaas waddadaa dheer iyo buuraha iyo rafkaas oo aynu u soo galna cabdiraxmaanow sheekada xiisaha laaya cabdiraxmaanna waxay tahay laba dumara ayaa la ogaayey bal 3 dumara oo hal habeen lala aqalgelayo bal ka warran dumar badan ayay dhegiba jaan la ekaatay oo sheekada aad ula yaaban aadna uga cadhoon doona dabcan dumarka soomaalida sida lagu yaqaano aad bay hinaasa badiin ayaa laydhaa waxaynugu helinayaa safarkan sidoo kale weriye cumar aw cali oo hawshan aanu xilligan wadno ka mida tiimka halkan aanu ku nimi sheekadana qayb weyn ka soo qaatay inaannu halkan soo gaadhno hawshanna ay sida nuugu qabsoonto cabbaasna dhinaca kamarada ayuu naga caawinaya daawadayaal ilaa caawa waxaan ku sugnayn madasha xafladda arooska cabdixakiin iyo marwooyinkiisa oo 3 caawa waxaanu la socodsiinaynay markii aan goobta soo gaadhnay iyo hawsha halkaas xafladda ka jirtay nooca ay tahay iminka barbarkayga waxaa taagan cabdixakiin iyo marwooyinkiisii ugu horrayn cabdixakiin ayaan weydiin doonaa soo dhowow marka hore dareenkaagu waa sidee caawa dareenkaygu waa caadi waa iska sax cabdixakiin waxaan la soconnaa in dumarka soomaaliyeedu ay aad u hinaasa badan yihiin badanaana aanay suuroobin in nin 2 dumar amba 3 dumara uu hal mar wada guursato adiguna 3 dumaraad hal mar wada guursatay sidee ayay kugu suurooday arrinkaas ee aad isku waafajisay amba aad isku ogolaysay horta wax walba waa qadarka ilaahay horta qadarkunbaa isku wada keenay qorshahan isku keenayna maxaa dhahday hablaha horta waynu heshiidnuun kolkaan banagaa joognayn wada sheekaysananay ayaan ku heshiinay qorshaha inaanu 3deedaasba sidaa un isku wada guursano dad badani markay daawadaan muuqaalkaagan waxay u fasiran karaan dadku isku wada mid maaha in cabdixakiin caannimo amba adduun amba wax kale ku raadinayo maxaad dadka u sheegi kartaa in arrinkani aanu ahayn waxaad isla ogeydeen laakiin uu yahay arrin seriasa oo dhab ah oo aan hayn siday dadka qaar u fasiran karaan horta sidaoo waa dhab horta aduu
de horta xaqiiqadeedii waa taani maxaa dhahdaa ku wada daawanaba inuu xafladeeda ugu wada joogno sida loo kala waa iska saas sidan cabdixakiin oo aad hal xaflad ugu wada dhigtay ma laga yaabaa hal gurina inaad wada dejisid waan ku heshiinay inaan guri keliya wada degno inaad saddexdaba hal guri wada dejisid saddexdaba barbarkaygan waxaa taagan mid ka mida marwooyinka cabdixakiin uu la aqalgalay habeenkan caawa sayn la soconno ninka ragga ilaahay wuxuu baneeyey 4 dumara cabdixakiin waa nasiib uu dheeriya ragga kale ee Soomaaliyeed inuu 3 dumar hal mar wada guursado taas oo dhif iyo naadir ah amba aan la odhan karo oo waxaan hore uga dhicin geeyiga ay Soomaalidu degto guud ahaan soo dhawo walaal marka hore magacaaga fayso musoola fayso waa sidee dareenkaaga caawa waa sax walaalaad baan u faraxsanahay fayso waxaan la soconnaa in haweenku ay aad u hinaasad badan yihiin adag tahay in dumarka hal mar la wada guursado sidee ayaad lagu qanciyey in aad ka mid noqotid marwooyinka cabdixakiin hal mar la aqalgeliyo waxaan ku tashanay buu ahaa anaan ku qanacsannahayna wax kastana in ay dhici karaan baan iska ogsoonay laakiinse waxaan ku tashanay unbay tahay waana ku qanacsannahay faysa waxaan la soconnaa in Soomaalidu badanaa aanay dhicin arrintani oo marka marar badan ay dhaceen in si laba dumar wada guursaday laakiin aanay muddo isku sii raagin maxaad leedahay weligii ma isku waarina miyaad leedahay xagga alla mooyaane way dhacdaa haye soo dhawow waan dhawaay magacaaga caysha cashay waa sidee dareenkaaga caawa aad baan ugu faraxsanahay raalli ma ka tahay in sidan hal xaflad laydinku dhigay in hal gurina laydin dejiyo haa aad baan ugu kalsoonahay dumarka Soomaaliyeed ee kale ee aan badanaa raggooda ka ogolaan in haween badan ay la guursadaan fariinta u dirsan waxay tahay wax walba adigu laga heshiiyaba waa iska kalsoon waxaad leedahay waa ogolaansho raali ahaanshaha haa barbarkayga waxaa taagan wariye Cumar Cali oo kamid ah bahda wariyaasha telefishinka Horyaal halkan oo ah dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Faafan degmada Awbarre qabalayga Hargeysa yar igu wehelinaya safarka halkan iyo dhacdadan cajiibka ah ee guur ee halkan ka dhacday inaan soo wada tibino dhacdadan adiga dareen nooceeyo ku muujinaysa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta qoyskan cusub aynu maanta caawa xilligan aynu joogno degmadan Awbarre gobolka Faafan qabalaygan Hargeysa yar horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maasha Allah reerkan u ducaynaynaa ducadii rasuulka ayaynu ugu ducaynaynaa barakallahu laka wa baraka calayka wa jamaca baynakuma bil khayr horta reerkan ilaahay ka dhigo reerkii lagu nasto lagu nagaado ninka Cabdixakiin wuxuu sameeyey wax rag badan ay ku dhiiradaan maasha Allah alxamdulillah saddexdiisa dumara ilaahay horta u barakay marka hore u ducaynaynaa waxay farxad geliyeen aad ugu faraxsanay Horyaal TV aanu kaga soo qayb galno halkan aad ka quruxda badan deegaankan aad ka quruxda badan ee waliba walaaleeyay Somaliland iyo Ethiopia halkan aynu joogno waxa ka tirsantahay dawlad deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia fariintan u diray waxa noqonaysa cid kasta horta labada dal qoyskaasi wuxuu u baahan yahay maanta in la garab galo in la garab istaago in la booriyo in garabkooda cid walba hadday Somaliland hadday Ethiopia tahayba waxaan u diraynaa inaguna uga faa'iideynaynaa in qoyskaa la taageero oo ilaahayna uu ku garab galo inaguna aan ku garab gelaynaa fariinta ilaa caawa aan u joognay tiimkeenaasi Horyaal TV maasha Allah oo ka mid yahay adiga Cabdiraxmaan salaha uu sameeyay Cabdixakiin ma laga yaabaa Cumar in adiga laftiga nin walba waa waajib adigoo maanta Cabdiraxmaan Jubba iyo anigoo Cumar labadeennaba hawleena sugayo noo yaala inuu kaga dayno walaalkeen inuu talaabada qaadno ilaahay mana ragga u baneeyay in 4 dumar guursadaan ceebna mu sameyn dambina mu sameyn afartiisi xalaal shaxa ay 3 kamid ah caawa meel ku wada hooyay diintuna waxay u ogashay inuu guursado ninku guursan karo 4 dumar
alxamdulilah rabbilcaalamiin haddii maanta haweenkeennii inta afka soomaaliya ku hadlaysa ay garteen inay maanta saddexdaa hablood ay walaaloobaan oy hal mar la wada hooyo allahu barakeeyo ducaynayna daawadayaal intaas waxay noogu idil munaasabadii quruxda badnayd xafladdii la yaabkeeda lahayd ee cabdixakiin iyo saddexdiisa marwooyin aynu odhan karno waa ninkii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee ku dhiirada arrintaasi iyadoo ragga ilaahay u baneeyey 4 dumara inuu hal midun ay u dhiman tahay maanta saddexdii kalena uu hal mar hawshooda dhameeyey tusaale waxa ugu noqon karaa ayaan leenahay ragga Soomaaliyeed guud ahaan inkastoo haweenkuna arrintaas ay cadho weyn ka qaadi doonaan dabcan haweenka waxaan leenahay cidii raali iska ah cidna u diidi mayso ragga qaar 4 mar way wada guursan karaan hadii uu helo 4 dumar oo raali ka ah intaynu munaasabadan mid la mida ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa aniga Cabdiraxmaan Jumba Liibaan Cusmaan Cali